waxa maanta fadhigayga soo kixiyay waa bil Ramadaan beejaj been abuur ah oo runtii hagardaamo iyo gadaafo hor la igu haya magaceeda oo buuxa waa Hooda Maxamuud Nuur balse dadka waxay u garanayaan Hooda Gareys waa dhibana dadkaysan ka warqabin waxay dhibana u tahay shakhsiyaad aysan muuqaal iyo sidoo kale maqal intaba u aqoon balse tusaalooyin xunxun nolosheeda ka baxsha waa kuwa aan wanaagay sidoo kale qiimaha qofkan garaneyn waana kuwa caadaystay inay sumcad xumo u raadiyaan gabadhan waxay sameysteen page Facebook waxay ku qorteen magaca Hooda Gareys waxay page-kaas ku xardeen sawirada Hoodo waxana ay page-kaas Facebook ay u isticmaalaan danahooda gaarka balse dadka qaar oo baaris badan sameyn ayaa u mooda page-ka midkii saxda ah ee Hooda Gareys taasna waxay keentaa in dadku ay u gafaan gabadhan waa flagaada ay kula dhaqaaqaan waa bil Ramadaan iyadoo soomanay qalbigeeda murugo ku beereen waxay tiri Hooda Gareys waxay iga faafiyeen warar aanan soo qorin waxay iga sheegeen been qoto dheer waxay magacayga ku salaaxeen dagaal dhiig ku daatay waan aniga horunin waxaana page-kaas magacayga lagu qoray lagu sheegay inaan anigu dhiirigelinayo dagaalo ka dhacay qeybo kamida deegaano hoostaga degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud Hooda ayaa ku celcelisay dhowr jeer aniga melihi page-ka Facebook mana ku soo qorin wararka lagu horinayo beelo walaalaha oo dagaalamaya Hooda Gareys ayaa sheegtay in page-ka hadda lagaga been abuuranayo iyada magaceeda uu yahay mid dhibaato lagu horinayo balse ay jiraan shakhsiyaad hadda iyada garab taagan isla markaana doonaya in page-kaas hawada laga saaro waxa Hooda Gareys ay ka codsatay qof kasta oo iyada yaqaana in page-kaas uu report gareeyo si hawada loogu saaro maadaama iyada lagu dhibaateynayo Hooda waxay tilmaamtay inay tahay iyada qof wanaagsan isla markaana suurtagal aysan ka ahayn xaggeeda inay ka qayb qaadato dhibaatooyinka ka jira gudaha geyga Soomaaliya waxaan ahay qof wanaagsan laakiinse waxaa jiraan dad ku ciyaaraya magacayga waan ogahay dad badan inay ogsoon yihiin aniga inaysan waxaas iga suurtoobin laakiinse dad ku sirmaya oo wararkaas aaminaya ayaa jira sidaa daraadeed waxay soo gaaraya fariimaha flagaada iyo sidoo kale hadalla aniga nacayb la igu qaadayo waxaad ogaataan aniga miihi qofka soo qoraya beejajka lagu soo qorayo wararka been abuurka saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday page lagu sameystay magaca Hooda Gareys isla markaana iyada aysan mas'uul ka ahayn laakiinse lagu soo qorayo warar la xiriira dagaalo ka dhacay deegaano hoostaga degmada Caabud Waaq dadkana waxay u qaateen in gabadhan qayb weyn ay ka qaadanayso hurinta dagaaladaas taasoo noqotay in fariimo kala duwan ay gaaraan Hooda Gareys oo arrintaas aan ka warqabin waxaan rabaa inaan halkan ka idhaahdo ciidamada liyo boolista oo gadaafo damiirkayga iyo maankayga iyo maskaxdaydu toona uma geysana magacayga loogu geystay inaan idhaahdo halkan ka apologize gareeyo mar kale aan rabaa inaan deegaanada Caabud Waaq dadka ku sugan iyagana idhaahdo raalli ahaada